Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku tilmaamay kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waraysi uu bixiyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayuu waxa uu ku soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan dagaalkii Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya 5 sano aynu ka soo gudubnay. Fahad Yaasiin ayaa wax laga weydiiyey sida Axmed Madoobe ay dagaalka ula gashay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana wuxuu tilmaamay Axmed Madoobe inuu yahay kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira, haddii uu ku sii jirana Soomaaliya aysan hagaagi doonin. 6 madaxweyne ayuu Axmed Madoobe la dagaalamay. Sheekh Shariif ayuu la soo dagaalamay, Xasan Sheekh ayuu la dagaalamay, Farmaajo ayuu la dagaalamay, Xasanna waa uu la sii dagaalami doonaa. Cabdiqaasin oo keliya ayaa ka badbaaday. Axmed Madoobe waa nin dano ajaanib u jooga Soomaaliya ee ma aha nin xitaa qabiil ku jooga. Way jirtay wada hadallo aan la yeelanay aniga iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo xitaa Kismaayo ayaan tagnay si arrinta looga dhigo mid Soomaaliyeed, hase ahaatee waxba way ka soo naasacdaan waayeen ayuu yiri. Wuxuu yiri xitaa waxaan ku casuunay magaalada Muqdisho Axmed Madoobe, isaga iyo madaxweyne Farmaajo ayaa sheekaystay, laakiin waxba iskuma aysan fahmin oo wuxuu yiri wada tashiyo ayaan dib ugu laabanayaa ee iga warsuga. Waxa laga weydiiyey in dowladda Soomaaliya ay isku dayday in ay gacanta ku dhigto Axmed Madoobe intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ama ay xabis geliso inta doorashooyinka Jubbaland ay ka dhamaanayaan, balse waa uu beeniyey. Wuxuuna yiri sidee qofku marti oo aad adigu casuuntay aad u qaban kartaa, caqliga uma shaqaynayo, waa quraafaad waxyaabahaasi. xitaa annagoo la joogna Kismaayo ayaa wararkaas ay jireen, annagoo marti u sidee ayuu noo qaban karaa? Dhaqanka Soomaaliyeed xitaa arrintaasi ma qabo in lagu fikiro. hase ahaatee waxaa Fahad Yaasiin uu tilmaamay Axmed Madoobe inuu yahay nin dowladda Kenya meesha ay ku hayso. Shir ka dhacay ayuu sidoo kale ka hadlay magaalada Nairobi 2018 waa isku hor fariisteen Fahad Yaasiin iyo Axmed Madoobe, kaasi oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan. shirkaas ayuu tilmaamay in ay dowladda Kenya uga codsadeen in faragelinta ay ka daayaan arrimaha Jubbaland oo ay tahay Jubbaland qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. laakiin mas'uuliyiintii Kenyaanka ahaa ee meesha fadhiyey ayuu Fahad Yaasiin tilmaamay inuu si toos ah ugu sheegay Axmed Madoobe u sheega madaxweynihiisa waa Farmaajo ee ma aha Uhuru Kenyatta. Fahad Yaasiin ayaa waraysigiisa oo qaybtii labaad baxay waxaa laga dhadhansan karay inuu yahay nin aad u caraysan, iyadoona dadka taageersan siyaasadda Axmed Madoobe ay ku tilmaameen in Axmed Madoobe uu yahay halyeeyga siyaasadda Soomaaliya, cidna xilligan aysan ku xadgudbi karin, isla markaana Fahad Yaasiin uu u muuqdo in weli Boris ku qarinayo isagoo reer Jubbaland dhibaatooyin xooggan u geystay sida ay hadalka u dhigeen inta badan dadka siyaasadda Axmed Madoobe la dhacsan oo aaminsan in Fahad Yaasiin iyo Farmaajo gaboodfallada ay Jubbaland u geysteen 5 sano aynu ka soo gudubnay waraysi aan lagu tirtiri karin.